gobolkan waxaa la yidhahdaa Shrilang Pat run ahaantii dad aad u fara badan ayaa ku nool boqolaal sano ayay jirtaa marba wuxuu ka talin jiray Sultan Tipu nin la yiraahdo waxaa jiray dhaqan xeer sharci intaba balse markaas kadib Tipu markuu geeriyooday nin waxaa soo baxay Hari la yiraahdo iyo weliba nin Keesho la yiraahdo ayaga ayaa maalin walbo meesha fitna ka abuuri jireen gobolkan wuxuu leeyahay saldhig maxkamad talis intaba balse waxaasoo dhan waxay hoos imaadaan Hari iyo Keesho ayaga ayaa dadka waxay doonaan ka samaystaa doqon yahow lacagta aan kuu sheegay haddii aad qaadan lahayd maanta horumar ayaad ku fadhin lahayd laakiin adiga hadda doqonkaas ayaad warkiisa qaadatay adaa doqon oo damiir lahayn war yacni janaalka waxaan u furtay shacabkeyga inaa ugu daneeyo kanaalkaas aniga waan burburin karaa ma ogtahay midaas maxaa burburi karti mala warya doqon aan damiir lahaynaad tahay warya daacadda oo noocaad oo kale ah mar walba waxay ku haminayaan inuu qof imaanayo xaqooda oo u dhicinayo taas waa riyo adiga aad ku riyootay waxaa kaloo kuu sii dheer doqon adiga mar walba waxaa jeceshaa in taariikhda ay ku xusto laakiin taariikhda kuma xusayso doqonnimo ayaad u dhimanaysaa adiga ugu wadaba dadka waxay yidhaahdeen qofka markuu xanuunsado digtoor ayaa la geeyaa qofkii kibirkiisa batana Hari ayaa loo geeyaa kanoo kalena dawadiisa aniga ayaa haayo wiilkayga kanoo kale looma baahno wakhtigaaga inaad ku lumisid ee hooshaada cab ayaan ku leeyahay cab hoosha walaalkay aawe war waa la gacan galay weligeyga waxaan fiirsan jiray filmaanta weli waxaan ka arki jiray hal qof oo 10 nin ay garaacayaan balse maanta indhahayga ayaan ku arkayaa yarkaaga tooraa iska dhigay adiga kuuma soconeen meesha ka carara ayaan ku dhihi lahaa ninkan intaad u gudbin aniga ayaa kuu dhammaynaayo maxaad dhamay kartaa adaaba 3 kiilo ee waryahoy maxaa naga qaadaysaa intaan kugu dhammayna hadda xaalkaanaan ku dilana waana arki doontaa ma ogtahay waraabaha kan aamusan iyo kan qaylinaya kan aamusan inuu khatar yahay ninkaad ku tilmaantay inuu 3 keli yahay ayaa wuxuu soo dhamay kartayga buuggiisoo dhan raganimo ma ahan 10 qofood inaad hal qof ku dishaan laakiin raganimada waxay ku jirtaa hal qof markuu 10 qof uu dilo keligiisa weliba fulayga sidiisa buu ulal badan yahay laakiin usha aad qaadanaysa waa inay noqotaa mid waxtar leh oo weliba nin ruuxii kale lala soo aaday aniga meesha mar walba waa jeclaa inaan ku duceysto laakiin nasiib waan u markii aabaha la bedel ayaa nasiib u helay ka waran he waxaa la meesha qofka ku duceysto ducada waa laga aqbalaa mar run baana ii sheeg biyo waa ku
tuuga kembiyaha war naga tag baan kula hata hadinta doorba ormonyo shaydaankan asaga maba dhimanayo miya marba anaga waxaan barinaa in uu dhinto shaydaankan maxaa ku dhacay gabdheeda biyo biisiya tartiib wacdo halo keeshu yaaqi qofkan waa dhaawac wuxuuna yaalaa bartamaha magaalada meesha laga dugaamaysto waan ku barya inta u imaataan isbitaal gee aad ayuu u dhaawacan yahay marka dhaqso ugu imaada idinka maxaa kugu dhacay wiilkeyga walaalkaa wuu fiican yahay maxaa dhiig kolkaa ka muuqdo dadkii walaalkay soo garaacay ayaan anigana gacmaha ka soo gooyay walaal horta aniga nafsadeeda wiil ayaa badbaadiyey wiilka makoo i badbaadiyeyne gabar ayaa biyaha afka igu qabta gabadhaasaan doonayaa baaritaanka markuu dhammaado kadib 2 maalmood hoostaada ayaan keenaya gabadhaas waxaan rabaa inaan guursado aniga wadna xanuun daawo waa loo heli karaa wiilkayga jiro kale haddii ay tahay xitaa daawo waa loo heli karaa macno ma lahan laakiin adigoo xaas leh inaan naa kala guursanin naagtaada maxaad ugu jawaabaysaa ii sheeg hadhow adiga ayay su-aal ku weydiinaysaa waatana maxaad leedahay markaas hadeer naag inaan guursado aniga yaa dacwo ii dood ka qabo gabadha walaalkay uu ku waashtay sida ugu dhaqsiya badan waa inaad ku keentaan aniga gabadha xaggeen ka raadinaa ciwaankeeda maba naqaanay war gabadha gaashaalaha baadhale baa la orinaya madane muxuu yahay hadduu dhalayna walaalkay ayaa jeclaaday runtii gabar waxaa la guursadaa marka adiga dhibaato ay ku haysto gabadha kuu naxariisato gabadhaana waa ay kuu naxariistay adiga inaad guursadna waad ku qasban tahay istaag guduudkaasida sooma jeedid sooma jeedid dadkao dhan meesha way ka carareen ninkan weli wuu taagan yahay waa nin sharci yaqaan oo inaad sawirtaa facebooka rabaa inaad dhigtano mudane runtii markii kusoo laabaad shaqada aniga aad iyo aadaan uga farxi waana mahadsan tahay yaqay adiga mudan mudane halkoo arrin kalaa jirta ii sheeg runtii mudan aan howlgab markay noqdo dadaa garab iigu sii shaqada inaan kusoo laabto dadkaas inaa ii ogaatidaan u baahanahay intaas taliye walaal harii kunkooy ku doonos walaal harii ah meeshan ma aha ee xafiiska igu sugo isman sheekiya wahaye midin harii ninka magaaladan uu khatarsan waaye haddii inta imaadan weynas uu imaadee waxaan ku dhiraa iska qaabil waan ku salaamay mudane harii ninka la dhahaayo si wanaagsan ayuu ii ammaanay midaasna waa midaan aniga muteystay fadhiiso wiilkayga fadhiiso waayahay waxay ila tahay meel qaldan inaad imaadeen waa maxay waxaad la imaadeen ninkaan aad u jeedid adeerkiis ayaan ahay harii ayaa la dhahaa walaalkiis ka yar ayaa jira keeshu ayaa la dhahaa aad ayuu u qurux badan yahay yaraantiisa wuxuu jeclaa bisooladda inuu ku cayaar hadda markii uu weynaaday bisooladii ayuuba ku tagayba gabadhaada ayuu jeclaaday waa inaan ku darnaa marka burcadnimadiisa ku faanaya lagama yaabo gabadheedii inaan ku daro waxaan ahay boolis ahaw ama wasiir ahaw waxaad ogaataa mar haddii gacanteena ay qoortaada gaarto sirwaalka aad ku kaadinaysaa taariikhda ayaana qoraysa midaas walaalkay gabadhaada mar la kulansii haddii uu dhididka keeni waaye isagaaba nin rag ahayn mar dambe kelmadaas afkaaga dee ka soo baxday uu xabad ayaan afkala gelinaya waliya bistooladda adiga aad sheegaysid annagaba waan wadanaa ogow haddii ay taada kugu yaraatana annaga naga soo doono tanna adiga iska xarays ayaan ku leenahay markood qofka aniga wanaaga ugu imaana haddii uu diidana burcadnimadeen ayaan tusnaa taasna aniga ma dhihin ee taariikhda ayaa xusayso gaashaalla adiga si fiican ayaad kaartada u jeli taqaanaa gabadhaada waad diidi kartaa micno ma lahan laakiin hadda hurdadiinna way wanaagsan tahay cuntadana si wanaagsan ayaad u cuntiin hadda waxba idinkama hadlaysna laakiin mid ogow gabadhaada haddii aad isku dayda inaad diiddo waxaa hubanti ah taariikhdaadoo dhan inaad u baasbaxayso dhegeysta
dan walbood iga leedihiin xafiiska ayaad igugu imaanaysaan gurigayga dadku ma qaabilo waa markii ugu horraysood qalad gashaan waad cafiyey ee ka taga guriga si fudud ayaa waxaa ku tidhi halkaan ka taga anaga ma baxeeno ilaa aan danteenna ka gaarno hadda wiilkeena wuxuu rabaa adiga gabadhaasi sharafle inuu ku guursado haddii aad diidid waxaad ogaataa gabadhaada 7 ayuu la gelayaa kadib ayaa la guursanayaa taas aniga ma dhihin ee taariikhda ayaa xusayso arrintan waxaa naga xigtay inta walaalkay isbitaalka uu ka soo baxaayo mar hadduu walaalkay isbitaalka ka soo baxo naag la'aan guriga ma tegaayo middaasna waa inaad maanka ku haysaa walaal hari dimaashidaa waa taasaa haye dimaashida mustaqbalka shopping waana si fiican u soo adeegataa arooska ma rabna annaga inaan daahino waan dadejinaynaa nabad wiilkayga nabad haa walaalkayga gabar qurux badan ayaa dooratay adiga midii horena inaad disho waadba ku saxneedba nasiibkaaga waad ku guulaysata ayaan ku dhahay kuu gashay yaaway ninka aniga ninka markuu dhimanayo adiga biyaashiilis kaa saara inuu ku guursado kabaranaan ka sheekay oy waa maxay waxaan dhacaayana waa 3 awood boolis biskoolad iyo tuugo dadkaana waxay rabaan inay ku guursadaan aabbahana midaas ayuu diidan yahay oo dantiisa ma yaqaana asaga dadkaana afkeena ula gala ma ahayn muxuu ula galayaana marwa dadkan ujeedad naxariis baa ninkan hadalkiisa waa ku saxan yahay maxaa yeelay gabarteeda inay wateen seerabaan ka yeesheen bacdeena waa dilaynaan ku dhahay naxariis ma u sameyneen qoortay ka jareenaan dadkan ujeedad weliba unuka boolis waa iska nahay iigan boolis unahayaan ku dhahay khalada ay galaayaan bacdeen unuka meesha loo inaan raaligeliya waa u tagayna iigan raaligeliyeena tas bidaadanimya maanta inay suularta wax lagu ogaadaa markay badato xumaan cid wax noogu qaadi karta ma laha sababtaas saman ayaan wadanaa annaga mideeda kaleeta ayaga wax walba ha sameeyaano laakiin guusha annaga ayay noo dambaynaysaa in iiddaada khayr u sheeg gabadhaydii gabdhaha run ahaantii hindii ku nool caadi ma ahanan ku dhahay weliba waxay u dhaqmayaan gabdhaha yurubka imaada camal ma waxay kula tahay hindii inay dambayso hindii way horumarsan tahay way imaadaan u malaynaa aniga nasiib badnayaa saakii iga soo horbaxay nasiibkayga aad ayuu wanaagsan yahay gabadhan aad u qurxan ayaan arkay waa inaan ku dhegsanaa marka waa maasan tahay ku dhahay walaalkay shiya qofta aruusaya warkaal haddii la maqlin waa lagu ka jiya hata baa kuu sheegay dignina kuu sheegay qofkan qofka wanaagsan waa inaad rasataa qoftan waxaa gursina keeshuu baay ee keeshuu baay isku halay keeshuu muxuu yahay hal mar waa la kulma ayay ku ilaabaysaa fishaali cabduulka jeclaad soo midkaas mahana aha أريا ولا لا وكوسي أنا كوسيات هذا دارك كلام بينهم خبراء أبيه وياك أردنا وين نقطع هذا عجوز هذا أريا قدام بهدات هذا أوجادا أوكي كرك يسقط طوال لك أصبعها كالي ما حكى قصدنا أكو وايك ودي مثلا نامو على تمكان qoftan waanta aad bay qurux badan tahay waryaa hooy ninkaasna arkin looga qoftaan u saa jecel allugu ka midna afaareeda ka bax adiga kii sugaa sheegiisa xaggayga wuxuu ka yahay canug 3 jira gabar weyn oo 20 jira ma ka faal qaadi karo balse aniga waxaan ahay 20 jira gabadhan oo kalena waa dadka loogu talagal inay la wadaagaan nolosha aniga waxaan bala qaadi karaa gabadhan nolosheeda iyo mustaqbalkeeda in aan dhisi karo aniga noloshan waxay macaan leedahay mataqaanaa markaad jecelkaaga naftaada halis aad u geliso anigana waxaan diyaar waa nafteeda inaan halis u geliyo dhib walbo khatar walbo gabadhan darteeda diyaar waxaan inaan u galo nolosha waxay macaan leedahay mataqaana markaad naftaada jecelkaad halis u geliso jecelkii ku qaadan maaha weligeed mid ay ilaabayso meel walba guurka ayaa laga sheegoyaa adiga nintooga maxaad u guursanaysaana aniga amarkayga wuu ku dhacoyaa marka maxaa iskaga dhiiri maysana aniga maa diidi karahe qof walba mustaqbalkiisa asaga ayaa go'aan ka gaari kara adiga markaa iska diiday ahayd aabbahaaba gaashaale tuugada maxaa qorta kuu geliyey taas wuxuu ogta adigoo dil toogasha lagugu xukuma adigaaba ogol iska dhima saaxiib mararka qaar waxaa la fiiriyaa duruufta meesha taalo duruufta meesha taalana waxay tahay dadkaas waa dad tuuga awoodna way sheeganaya sharciga gacantooda ayuu ku jira aabbihi waa daacad waan ogahay laakiin waxaan u diidanahay inay dhibaato soo gaarto anigana aqli ayaan isticmaalay sidaas ayaan oo aamusay marka ma fahantay aniga aabbihi aad ayaan uga naxaya yaaqib mid kale iska jeclaa oo la baxsano
waaba ii fiicnaan leed haddii aan helayo nin aan ogoleen korkayga in la taabto oo geesi ah laakiin waxaan aaminsanahay maalin maalmaa ka mid inaan helayo nin sidaas u fiican oo ijecel aniga aana ogoleen aniga in xaggayga loo soo dhaqaaqo gabdho akhbaar fiican ay dhihaaya xasad waa iskoolka jirto maya wiil cusub iskool kusoo biiray wiil cusub ah wiil cusub aryaa wiil cusub kusoo biiray iskuulka wiil cusub wariyaa gabdha waxay idin sheegaa see loogu ogolaan karaa gabdha iskool dhigtaan nin isku soo biiro nin meesha imtixaan aan joogo mamnuucay ka tahay adiga nin ma tiidliya macalin aniga nin waan ahay laakiin nimanka waxaan leedahay nimankooda nin kale mas meeshaan imaadan aniga raali ma kana qaahay marba ininka ana idin leh ininkana ana ay leedihiin oo kaale hadda waaba diidantiiniya naag walbani gabadh inaan ka qabo wariyaa hoy doora diikheed ma moogo doorahin diikheed ma moogo damac la qaadaa dalkana ka tegaysaa dama eegama dawooshen wariyaa hoy idinkaadi ahaleed maxaa dhihi leedahay ninkaas iisheeg baadaan ku weydiiyoyaay iisheeg adaan ku weydiisayele aniga haddii ahaan lahaa si fiican ayaan hab u siin lahaa oo macna waa ku baryaynaa naag nin la-aan ma noolaa karta naga daano adiga iimaanka allaan iiga siiyo naag nin la-aan ma noolaa karta yaa ku yidhi ani tan waaba ka sidhe meeshaa markay ka baxdo shaxaaday magaalada u tagtaa laakiin ani shaxaadkaasaan ka hor joogsaa nin maarkays waryaana cala qabtooshayaaliyo waalidiintiina meeshaan waxbarashaan igu soo dira nin ina soo dhaweysay maa nin haddii la soo dhaweeyay aan la soo dhaweeya nin kale maba soo gelaayo meeshaan soo baxa lamaantiina macalin maxaa dhagaa gashanoosaan adiga khaylidiisaan diidooya waad ku qurux badan tahay macalin waa liigu dhagiyaan ku dhahay soo baxa kan nin ma ogol iimaanka alla ka qaaday gudoomiye kusey 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 dooni mayno maxaa la qaylinaysaana maxaa la qaylinaysaa maxaa la yidhahdaa koolajkaan anina ninkee war sharciga hore waa la bedelay sharci cusub ayaa koolajka loo sameeyey miska qaylinaysaa adiga ma waalan tahay mawaalni waxaa ii waxaysaa maamulaha naftirkeed maamulaha naftirkeed maxaa ku daarin ood la qaylinaysaa maxaa ku daarin ood la qaylinaysaa ay leedahay meeshaan ninaa imaaday nin sas ku soo geli karaa nin aan ani ahayn xasan jilico muu ogola idinkana waa imaanaysid dadkaan nagaan soo wati muujada anigay taageeri yihiin ballan waayaan ku dhahay waaya adiga dadkan kugu raacsan dadka waa igu raacsan yihin exusdana ay igu raacsan shaqaalaha iyo madaxda dhan ay raacsan yihiin aniga gadaasheeda fiiri haloo jooga muujadid miya aawa hadda waxaad aabiya gadaasheed mala jooga miya ya malisiibta keligiiha maamula raalla ahaw gabdhahan waxay dheheen waa kula jirnaa nin marabno adle nin noo hadda markii meeshaan imaadina waa ii kala baxeen waa ujeeda dhib ma lahan adiga waxa wanaagsan amarka maamulka uu soo bixiyey inaad diyaar u ahaato kursi walba oo kollejka ku yaala wiilasha in konta kuraas looga gooyo ayaa lagu talagalay marka sidaa daraaddeed haddii aad dood ka qabto adigoon banaanbax sameynna carruurta soo shirin waxa rabaa maamulka inaad u tagto laakiin waxaa kasii wanaagsan inaad iska dhaafto maamulka hadalkiisa runtaa waay bes iga raalli noqon ku dheh anaa gefi mooho khudbadayda leen ku ekaha naagahana nimanga diubaanyin anaanba ku dara raalli ahaaw gabdha adinka ma waxaad rabtiin wiilasha cusub inaad la kulantiin soo sax maahana laakiin aniga ayaa ninkaga hormarayo midaaba teleefonkiisa gacanta iga saaray okay tartiib ya qays aniga ayaa nin xalinayo sawiradoodoo dhanna halkan ayay ku jiraan emailka 300 waaye website-kana 600 waaye haddaba ogaada iska soo tuura lacagta maxaa meesha ka dhacayana horta ninkan araggiisa ma xuma sida shukulaatadii oo kale aad ayuu u macaan yahay qorshaha uu kollejka u yimid waa 2 nooc inaan annaga ku dheelno ama inuu asaga nagu dheelo aniga gabdhaha yar ay istrukeeyaan waxba muxuma laakiin naagtan ay fareeja la dhahayo da'mu dhigta dugo dhiman bis igaalkeed camal waay waa istrukeeyoosa iimaanka ilaahay ka siiyo subax wanaagsan macalin subax wanaagsan macalin war adduunya gadoon inas yahay 7 jir waaye wiilaa imaadaya ima khashin rosetay afka marsooysaa bilcaanta birkood mashiixaayaan
mudana waa ku salaamay adduunya gadoonkan arka ninaa imaadile la maqli ajariidhana la soo qaaqaabi iimaanka allah ka siiyo kuwaana mudanaha maxaa daaray waaw wiil farta ka xiran ayaa yimid kolleejka akshinkiisa xataa waa khatar gabar kolleejka dhigita ayuu rabaa ayaan u malaynaya soo baxay sawirkana la tusay iyo qaab ahaantiisa hadda ayuuba qurux badan yahay caadi maaha ninkan maxaad tirinaysaa maya waxba maahan eena bixin ninkan macalin jeki gabdhaha dhan maaniyu keliya isa socdaan mar macalin jeki haddii itiri macalinkaagan gabdhaha waa qaabile ani laakiin keligay ahay gabdhaha ma la hadli aqaano waan ka baqaya markaan hore istaago waxaa la rabaa kalsooni isgili macalin jekeyaa kuu duceey waay maxaa sameeya macalin sheeg waa qaabilehaan ku dhahay kalsooni buuxdan ku siiyey waa duceysa waa mahadsan tahay macalin aad baad mahadsan mahadsanidin gabdho magacii waa kaarti krishna kusoo dhawo kolleejkeena mahadsanidin maanta maalinta jacaylka miya ubax ayaad gacanta ku wadaaye aragtida koowaad maxaba ayaad nagu raday maxabada waxaa loogu talagalay dumarka haddii soo dhaweyn laga helayo waa wax wanaagsan anigana waan ku faraxsanahay iga guddoon mahadsanid dhanakaagana miisaankaaga 75 kiilo kalarka jecesha balaaga gabdhaha qurxan ubax waan u badiyaa gabdhaha noocay jeceshaa kuwa faashiyonka gabdhaha faashiyonka nooceed ka heshaan adiga mana sheegi kartaa kuwa da'deeda ah gabar saxib ma leedahay maya saxab ayaan leeyahay jacaylna maya gabar aad ka hesho ma jirtaan maya haddaad heli weysan haddii aan heli waayo nolosha ayaan isdhaafinaa waa badan noloshaa nooga sheekaysay kulankaaga aad ayaa ugu faraxsanahay waan ku salaamay waan kaa qaaday anigu waan ku aqaanaa ma og tahay anigu sidoo kale waan ku aqaanaa laakiin sidee gabar magaalada degan aniga aan aqoon u lahayn wayba yar tahay aniga markii uu samaa faraa xidhnaa ayaan laamiga kuga arkay sharciga waad dhowrtaa adiga aniga sawir ayaan kaa qaaday kadibna facebooka ayaan dhigay waad mahadsan tahay laakiin hal midaan raba inaan kuu sheego wiilka adigu guursanaba ma aha mid kuu qalma dadkoo dhan sidaas ayay dhahaan maxaa dhacay ma iska dhaartid maxaa sameeyahay duruuf ayaa jirto inaan ogolaado waan ku qasbanaa mana diidi kari haddii ogolaado waa dhib haddaan diidana wayba ka sii daran tahay dhib malaha magacii waa kaarti krishna waxa kale kugu taga fiirahan mahadsanid adigaa mudan kulanka koowaad ayaabad hadalkaada igu qancisay aadaad u mahadsan tahay sidoo kale mudane shil labaad ayaa magaalada ka dhacay maalin cad ayaa dadka la dilaya xayawaanimada way ballaaratay maxaa kale keesii walaalkiisa ayaa ka dambeeya adi ma caddayn kartaa gaashaan laatay had maxaa wax ugu qaweysa ii sheegbe war dhegeysta hadal meeshaan looma baahna warbixintan dadka idin soo siiyey hal qof markhaati ha ii keenaano waxaa idin tusaa wiil iyo walaalkiisa inaan xabsiga gudaha u dhigo haye yaa maanta xiso ma jirto maa tiri seerabtiin idinka seewa waa igu joogjoogsoosiin madaxayga istaagoo be maxaltiin kaarti kabadhi ayuu dheelay yaa asxaabi akhay maxayna soo baxa kara kaartig maa kabadhi ii dheeloy haddana maanta jag iga dhaha oo kaali kharajo muhiima eed saa in loo dhedheelo haa laakiinse anigii adiga kuma jirna dheeshaan ogow yaa macalin jeki ciyaartaan ciyaar rabo dhibaata ma iga imaataan ila keligii ayaa ragka halkan dhib male aboo miixa waad mahadsantahay diiq kaligiisa doora dhex ordaayo deb waa ku dhacaa nasiibkiisa isqaba beella waaye be haddiiba gabdhihii nimanka ay wareeriyooyin dhulkane wab ay ku siyoon oo ku joojoogsooyin aniga waa ufofooriya aan ku yidhi waa ufofooriya
waan ku salaamay waan kaa qaaday kalaya maxaa halkan ku fariisiyey aniga hal dhib ayaa haysto dhibkaas ayaan inta la fadhiya sidaas darteed waan fakirayaa hadda marka ii sheeg waaye walaalkaarti iyo asxaabtiisa aniga markaan gurigayga aadayo iyo markaan ka soo baxayaba iyaga ayaa i daba socdo teeda kale haddii aniga qof jidka socdo ila hadla xataa qofkaaseeti si xun ayay u garaacayaan dhibaatadaas ayaa aniga haysta dadkaaseeti dad ay dhaafayaan ma lahan inaan meel aada xataa way ii uriyaan aniga cidna lamaba hadli karaba sida darteed iyaga ayaan uga cabsanayaa hay macaljiki welwelka dhaafgalaan ku dhahay dadka okay adina fasixino haddeeraan galaa gartaan dhegeyso hal maalin keliya dulqaada yuri macaljiki howshaan waxay ka dambayso way ku dhammaanaysaa qole free ayay noqonaysaa waan ku baryaa kaarti kaftanka naga dhaafno waryaa waddada noo baneey wargad socda adiga istaag ayaan ku dhahay walaal waa ku salaamay walaalkayga yaraa waan kaa qaaday nolosheeda laba qof ayaan jeclaaday waa adiga iyo adeerkay adinka dartiinna si aad farxad u heshaan wax walba waan u samayn karaa laakiin adiga waxaan rabaa magaalada ka baashaal aqligaadana waa isticmaashaa war adiga intaad nooshaa walaalkaad magaaladan waa ku raaxaysanaa uma jeed siduu faraxsan jecel ayaa galay runta waa dhib ma lahan asigale hal mar ha guursado jacaylka inta afku hayn waxa laga yaabaa in uu burburo taas aniga ma dhihin ee taariikhda ayaa xusayso maxaa idinku dhacay aniga gabadha kaashaalaha ayaa idin dir wejigiina muxuu sidaa u yahay dhaawacan ayaa idin soo gaarsiiyey wardee haddii nala ogaado unukoo dhan waa nolol dalaca baan ku leenahay war maxay tahay dhaawac wejigiina ku yaala ii sheega bal yaa idin geystay kan dartiisa noogu dhacday kan dartiisa ah jidka markaas soconay nin islaameesna u daadaasada beerkaana laga soo tumo galey camala noo laxan jiriyey dooli haddii aad gambareel qoorta u gelisaan oo mukulaal aad u dirtaan mukulaasha ii deedo waay aniga ma dhihin ee taariikhda ayaa xusayso hay gabdho maxaa nugu dha halkaad u fadhisiin waxaad ogtihiin dad baashaalayo kale oo buwag jecel akhrisanayo walaalkeeshu ayaa walaalfishuu soo wacay waa ku salaam maanta aniga dib ayaan kugu soo laabtay runtiina sideeda adiga ayaa badbaadiyey maanta haddaan nool lahayna adiga dartaada ayaa u noolahay marka waxaan kuu sheegaya maanta inaan kuu soo socdo waana kuu imaanaya aad iyo aadaana kuu waxaysa mar dhow isug
ma intaasoo keliya dhibaatada ma ninkii adig ku guursan lahay miyaad ka baqaysaa kale yaqa aniga nin tuuga miyaan guursadaa nafsadeedaba kuma aaminayo ninkaas maanta hadduu tuugaya waxaa laga yaabaa marka uu ku guursado inuu iska daayo oo nin fiican u noqdo bal ka war markaas marka kaale aniga maad rabtaa inaan ninkaas nin fiican ka dhigane nafsadeeda qofkay rabta ma dooran karo qof walba dooq ayuu leeyahay balse dooqiisa maaha miduu helaayo waxaa laga yaabaa qofka qofusan rabin inuu helo aniga cabsi darteeda haddii aan u ogolaan waxay kula tahay nafteeda inay ku faraxsan tahay ninkaas aniga ma rabo maxaad udiidaysaa nolol heer sare ay ku noolaan lahayd war nolol heer sare ma rabo aniga nolol farxad le ayaan rabaa aan ku noolaado rii habeen iyo runtaba midna lama qariyo dadkan hortooda ka caddeeya aniga inaan ku jeclahay adigana aad i jeceshaa middaas inaad ku nabadgeshay ayaa laga yaabaa ogow fashali xageed ii wadaa adig ii sheeg fashali xageed ii wadaa fashali isdajarmi xageed ii wadaa ii sheeg ilaada loo adig halow idhageystadiyow dhammaantiin isku imaad waxaan rabaa dhegihina inaad i amaahaysaan aniga waad i taqaanaa magacaygu waa fishaali waxaanay dhalay gaashaanlaha gobolkaaneti waad ogtiin aniga waxaa laysiiyey keeshow adigana waad wada ogtiin aniga keeshow ma jecli waxaan u ogolaaday daruuf jirta awgeed laakiin aniga waxaan jeclahay kaartig aniga awal awood aan uga hortago ma haysan laakiin hadda waan haystaa kaartig aniga waan ku jeclahay waxaan rabaa inaan kula noolaado adiga ama ogolow ama ha ogolaan nafsadeeda adiga ayay ku rabtaa aad ayaan kuu jeclahay kaartig aniga waan ku jeclahay mana kaa dabaara nafsadeeda adigoo keliya ayay kuu baahan tahay kaartig go-aankana gacantaada ayuu ku jiraa kaartig inakeen walaalkaa ku wacay war ma jecli mana u tagayo u sheeg isaga jeclaa ma jeclaa ninkaas waxaas ma qoreen haye arrinta maxaan ka dhahaa ii sheeg maxaan ka dhahaa maxaa la dhahaa waa gelaysaa beg iyo xawada ka dhawey gabar diidan in la kaxeeyo haddii aad idinka xog ku kaxistaan waa calaamada ay burcada leeyihiin amaba lagu yaqaano war adiga yaa tahay magacaygu waa kaarti krishna labalabada aawadiin maahan midaan qaadanaya aniga hey annaga aqoon ma noo leedahay aqoon iska daaya aniga si fiican ayaa idin qaanaa balse ka waran gabar haddii wiil ay tiraahdo waan ku jeclahay wiilkaas hortiisa haddii aad ku kaxistaan wiilkaas maxay ka aaminaysaa inuu doqon yahay aniga waan ku qasbanahay marka kartideeda inaan idin tusay gabadhan inaan jeclahay waxay okaadiya fishaali dhegeyso jecelkaaga yuusan noqon mid aad ninkaas aniga igu reebaysid jecelkaaga ha noqdo midaad ku guulaystee run ahaantii markaad jecelkaaga ii sheegato anigana aad ayaan kaaga helay waana ku jeclaa fishaali jecelkaaga intuu ila jiro lagama yaabo aniga inaan guul daraysto hey kan waa kii ina garaacay qof weyn wadkiisa wuu yaqaana haddii aan wejiga soo xirta hataa aqoon ayaad ii leedaa sooma imaba ilaabin uriyaa kolajkan gabdho masaakiin ayaa dhigto balse waxaan ku liila caga dhigo لكن والله منك وكاسا نفسك يا ذنب تبادلنه ها وين أنا أدري صاحب أنا هل كان معك خبرتها ninka raggan looma baahna naagaan rabin inuu guursado ee waxaa loo baahan yahay qof asiga jecel inuu guursado haddii uu guursado qof aan jeclayn nolosheeda way baaba'day asigana sabab ah nolol fiican kama helaya gabadhaas noloshiisana way baaba'aysaa maalintaas marka aan ku badbaadinayn waxaan u baahnaa dadka adiga ku dili lahaa cabsida aad ka qabto in aan kaa baaba'iyo waanu ku raadinahay inaan adiga ku arko waana ku arkay ogow gabadha aad u socoto inaan aniga jeclahay biyo ay ku siiso nafsintaada ay ku badbaadinaysa inuu jecel kugu gala adiga kaale fishaaliin waa xaggayga maxaad ka leedahay ورياه
ciyaar yar aan korsada oo ku barya walaal haydin ciyaar yar maadaama aad sheegto waad iga badbaadaysaa adiga orado iska tag haye walaal bas waa ku barya adiga qaladka aan galay waa ka soo dhaqday mar kale ma u dhaqanayo gabadhaasna maba rabo walaalkaaga ma wuxuu ismoodin magaalkan inuu asig keliya u taliyo mise wuxuu ismoodin limaxa magaalkan dadka qalad yar markay kaa galaan waad baabi'isaa idinkana qalad markaad gashaan waxaad u baahantay inay la cafiiso maa mala socotaa adiga walaalkaaga masaakiinta dhibaatada aad u geysteen weliba waxay isugu jiraan carruur iyo ciroole dhibaatada u geysteen neef ma ugu bedeli kartaa aad ii sheeg markaas waad iga badbaadaysaa inta ka saraysa lagama yaabo adiga inaad iga badbaado masaakiinta dhibaatada u geysteen neef waa inaad siisaan markaas kadib ayaad iga badbaadaysaa awaar degdegayna soo gaaray ayaa waxay sheegayaan ninka kashibaay la yidhaahdo la la'yahay ilaa iyo hadartana ma lagu sheegin war waxaa ugu dambaysay markii ay dagaalayeen dhalinyaro badan asagoo ku dhex jira ayaa la yidhi in meeshaas lagu waayey wixii warbixin kalena anaga soo gudbi doonaa rowtiliye ninka kashibaay shal dagaalka u geliya lagu la'yahay waa la'yahay halo gareesaa loo xiriir walaalkay orda ii soo dejiye maxaa u taagantii walaalkay ii soo dejiye socdo tartiib soo deji saarigaas ka furmin saariley kac yaa saarigan ku xiro san ku galay ninka aniga markii hore nolosheeda badbaadiya maanta waa kana sidii dumarkoo kale igu labisa saariyo iyo hore haloogaye waa ii dhamaatay sharafteeda waa u dhamaatay haga dhigo ninkan adinka dartiina leh wax muu samaynin anaka naftirkayna mustaqbalkayna evereska dhiga waryaahoy anaka naftirkayna gareeskaas noo xiri inaan u xirna ballan ee waryaa kama dhaafeen caabi nimanka yaa bisaaleen nolosheeda ku ciyaare reer anaa kaaga aaray ninkaas maya ma ku xiri karo ninkaas saaridu ku xiri asagaa
walaalkay aniga ma dhaafaayo qofka sidaan u galay waa ballan inaan asagana garees u xiro siduu walaalkay ugu xiray oo kale ma daynayo kaas mana iga badbaadayo waxaan isdhahay isaga ayaa ku doogaya maantana waa kanaa horteeda ayuu ku dhintay aniga mar walba waxaan jeclaa meedkayga asiga inuu laakiin hadda waa kanaa meedkiisa ayaan gubaya aniga way dhamaatay karablaan ayaa igu dhacday maxaan sameeya aniga wiilkayga waa kanaa meeshaan ayuu maasoo ka watay reer binsaalle inaad soo dillo waxwadoodaa soo kiciyeyna ma dhaafin dhowr mar ayaan kuu sheegay haddii aad hadda war wanaagsan ku hadal aniga hadalkan hore uma dhihin ee taariikhda ayaa xusayso inta meedkan oo noo yaalo looma baahno wax dhaqdhaqaaqa inaan sameyno dhib walbo anaga noola geystayna waa u dul qaadanaynaa aniga hore uma dhihin ee taariikhda ayaa xusayso kadib ayaan tallaabo sharci ah ka qaadaynaa inta laga gaarayena maan anaga wax dhaqdhaqaaqa in aan sameyno ninka wiilkeena sidaan u barayna lagama yaabo in uu naga badbaado kow ayaan ka siinaynaa waan dilaynaa halo walaal kumaa tahay adiga anigu waa neeb ah in lay weydiin meeshaan ka imaaday iyo qofkaan ahay waxaad i weydiin kartaa oo keliya sababtaan walaalkaaga sidaan u yeelay iyo asbaabta keentay midaasoo keliya ayaa loo baahanya inaad iga waraysato aniga saqajaannimada walaalkaaga sameynaya ee gabdhaha magaalada joogi waayeen asaga waa dulli adigna waad ka sii daran tahay hadda kahor waxaa jiri jira 200 walaalo midna mid kale khalkan ku gal mid kale wuxuu jiro wuu saxan yahay ilaa uu midka walaalkiis ka arko markaas ayuu aqoonsaday walaalkiis inuu qaldanaa marka adigin noocaas ayaa tahay warkaadu wuu weyn yahay wejigaaga hor keeni kartaa adiga midaas aabihi ayaa i baray aniga adiga waxaad iga badbaadaysaa mataqaanaa sida walaalkaa oo kale gabdhaha laamiyada kuma qasqashaadid haddii aad gabdhaha laamiyada ku qashaado waxaad ogataa sida walaalkaa oo kale laamiga in aan ku dhigaayo mana iga badbaadaysid midaasna hore ayaan u ballan qaaday aniga halkaa waxaan u imaaday libaaxyada isma habiyana inaan u dhammeeyo waxaad qalad gashay walaalkay korkiisa markii aad taabatay midaan haddeer waa boorsamiindo filinka waa uu kuu dhimiyahay walaalkaa kaa yaraa ani waan u digay balse asiga wuu ifahmi waay saas darteed qadka ayuu ka baxay adiga haddaad ifahmi weysan waxaad ogaataa inaad qadka ka baxaysid adiga hadal walbo afkaaga ku soo dhacay waad ku hadashay laakiin aniga hadalkayga si fiican waa inaad u dhegaysataa aniga ballanta aan qaaday sidaydaba waan oofiyaa waxaad ii sugtaa oo keliya walaalkay meedkiisa intaan ka soo asturaayo kadib dunida meel walbo adiga aad kaga dhuumato waxaan ahay qofkii kaa soo saari lahaa mana laga yaabo in aad sinna iiga badbaadda adiga baasariyo okay haddii sidaas tahay waxaan raadinaa meelaan kaaga dhunto ugu horrayn googlaha buu weydiinaaba googlaha haddaan ka helo meelaan kaaga dhunto way ii fiicanta waa kaa dhuumanaya waan ka xumaa googlahane wuu isoo qaban laahe dhib ma laha ajensigaan tagaaya waxaan leeyahay tikid ii jara oo ninkaas aan kaga dhunto meel ii geeyaan leeyahay inta ku shaqaysana xafladiinna waad sii wadan kartaan qofka barnaamijyada noocan oo kale ku dhaqaaqa waa qof jecel ahaayo mideeda kaleeta adiga arday ayaa tahay maxay tahay sababta kugu kalaftikiisho inaad dishid aniga waxaan ku dhihi lahay barnaamijyadan faraha kala bax mudana bilaashaad igu eedeynaysaa kiisuu baaya asaga ayaa gacantiis ka dilay dilka noocaasoo kale maxkamadda waxay ku eedaysaa inuu ka dambeeyey qofka ku kallifay qofkaas gaashaal ma haddaad hurdada ka soo toostay markii asiga iyo walaalkiisa magaalada ay qasaayeen gabdhahan ay kursanayeen waayelada ay dilayeen adi xaggeed ku nooled ma hurdaysa xilligaas ii sheeg waxaan malaynaya haddaa soo nabdaaday marka hadda adiga amar diidda miyaad samaynaysaa madaxda dalka iyo mas-uuliyiinta haddii ay wax ka qaban waayeen dhibaatada lagu hayo shacabka marka ma diidantaha anigoo kale inaan dhalanayo oo waxna u qabanaya masaakiinta iyo shacabka weliba dad ayaan abaabulayaa oo weliba sideedoo kale ah masaakiinta iyo shacabka iyo waddankooda wax u qabanayo فيديو كبرية استاك فيديو هيدي اللي كبرية أنا كده أنا كده لما كفتر ما استاجي كين أما كيناي فيديو سي أما كسينا فيديو يا أخي فيديو أنا دايميا كم كده يا أمريكا جيرو أم بنا يشيل جيسا والله يا تادي أنا فيديو فيديو وكبريا جودا ودور سفله وكبريا إيه أقولونه أوكي هذا ينوجادي لا قبل جعشان مريكن كأي كنوشان ورناجين دبد الجرو مو واحد أم لسرق إلى قيميان بين أي وشيغان لكن بين لها نقطة أنا جا أي دبد تاني واحد هاي صو سارايا أنا قبل أن يرانتين أي نسنقيني
gabadhan guursanaa hadday tahay qofka uuri aan u sheegna waa adiga laakiin mesajkan qofka soo qoray xaq baad u leedahay inaad ogaatid adiga dib ma u wacda adreeskeeda ma ogaatana adreeskeeda muxuu yahay aniga maba aqaan meelay degan tahay mideeda kale guri isoo bandhigta aniga ma ogolaada ma bilowday beenlow ma nagu cabaysaana naga tag taleefonka haddii uu ka maqan yahay kaartig waxaan u malaynaya inuu caajisay adig ma caajisana kaale kale abbaa waan ku baryaa io aamin haddii aan ogaada gabadhaas waxay tahay oy gurigeen diyaar u noqoto qofta uuraysa aan u sheegaya waa adiga io aamin waa ku baryaa io ogolow taleefonka inaa isiis adigin balan waayo bal ii waran adiga ma israacsiisana haya qalbigaaga maxaa ku jira ii sheeg qalbigii adigoo keliya ku jiro adigna qaati aan kaa taagana cid kalema tabar u haayaabani haddaad aniga i jeclaatid waa balan cimrigaaga inta ka dhiman farxad ayaad ku dhammaysanaysaa fiidyaa adiga kaartig miyaad jeceshahayna hooyaday aabbahay anigoo yar ayay geeriyoodeen kadibna adeerkay ayaa isoo korsaday kaartina weligiis ima dareensiin inaan cidlo ahay laakiin shalay markuu wax walba ii sheegay ayaan ogaaday aniga inaan jecelahay weliba si xad dhaaf ah qalbigaygana uu boos weyn ku leeyahay jaceylka inuu wax jira yahay qofkan ay wax jeclaan karto waxaan ku ogaaday kaarti markuu noloshayda ku soo biiray markaas ayaan wax walba ogaaday aniga indhahana way i kala furmeen bravo calayk waan ku faraxsanahay maadaama gabadhayda ay wiil jeclaatay taasna waxay caddaynaysaa in nolosha ay qof la wadaagi rabto waan ku faraxsanahay gabadhayda dhegayso 4 beri kadib waa dhalashadaada markaas ayaan kaga faa'iidaysanaynaa oo wiilka runta loo sheegaya okay soo maaha maya aniga ma raba arrimahayga kaarti in loo sheego waxaan rabaa aniga afkayga wax walba inaan uga sheegto buuggaana waa buuggii hooyaday xasuusteeda aniga wax walba waan jeclahay iyo hooyaday wax walba ay jecleed halkan ayay ku qoran yihiin mideeda kale aabbeeyo hooyaday meeshay isku guursadeen ayay waxay rajadeedu ahayd aniga inaan tago markaas kadibna anin ku guursado sur ayaan aadaya kaartina meeshaas ayaan jaceylkayga ugu sheeganaya aniga waan kugu raacsanahay ra'yigaaga gabadhayda makeup wixii shir aan leeyahay dhan jooji gabadhayda ayaan hindiga u wadayaa sidee kaa noqotay ani markaana ciyaal mihi waxaan ahay qof weyn waana ismaarayn karaa adeer kaarti ayaan soo afduubaya kadibna waan soo noqonayaa sobeela maaha waa soo afduuba ah aroos ma jiro aroos ma jiro samaama soo socda yaaqi soo socda ka istaag meesha adi sidee maraykanka waaba ka tegaynaa meesha surweela ka hadlaysaa sunaami ayaa meeshaan ku soo socda sunaami sidee tahay ay saaxib sidee tahay adigan guryaana soo joogaya soo baxnay kaala sunaami la buugday surwaalka maxaa ugu soo carartana sunaami ag soo rortaniya vidya waad ogtahay kaftaga noocan oo kale inaan ka xanaaqanayo runtii hadda ma xanaaqdana adiga katig fidyaa walaasheeda waa fidyaa walaasheedana aniga ayaa qaba haddana waxaan nahay famil boodo adigana kaftaga xanaaqda ma ahan yaka iska dhaafa xanaaqee meesha hadduu jiifalaa ka waran sunaamiga ka kor imaan lahay بس نقدها يا اخي سي هاي اوكي ما هو هاي ما حرشي مدعي هاي maxaa kugu dhacay maxaa la fikiraysaa walaal ma ila hada shit qoftaas saudi aba walaalahay ma ka hesha qofta ma ku qanacsi ma ku waxa ii sheeg ha igu wac wariya hoy yarey kaale حاجرة يها او معناه ابو مدح الذهب
qoorta dahab caloosha dahab gacmaha dhan dahab kulli adi dhan wada dahab waa tahay de ina ma dhaaftiina waa idan turugaynaa waaya waa lagu dhaafaa laakiin xarash iyo madaxa la tuuraa haddii madaxa oo kusoo baxo waa iska bixisaa xarash hadoo kusoo baxano qoftaan waa noogu tegaysaa waa ifaantii amaleenano kaartig farxad ayaad kusoo wateen ha umaleyna farxaddaas inuu idin dhamaystira farxaddaas waa idinka burburinaa maxaa yeele asxaabtiisa oo arkaya wuu la baashaalaya bawr wadow iyo baashaalo iska gala adinka dhan maba idiin soo jeesanayo waa tuuri waa kaas hadalkayga waa sax ya haye haye shilinkayga u baahnaa walaal xarash iyo madax waxba kama ogi dadkan baashaal kale iska haye haye saas ditaani ada wada ciyaareen sii shilinkayga isoo saar misaalo sabaxsan waa iska taquriya kaale warsiika ciyaarsiyo wariyaa jooga kaale adiga wariyo fog aniga iyo qoftaana warada inaan wada ciyaarna adiga dhexdeeda maxaa kusoo geliyo war anigaba ciyaarta noocaan oo kale waan soo ciyaar tinta ida aniga ayaa ciyaar fiican kula ciyaaray haye ani ma ila ciyaaraysaa aniga inaad la ciyaarta aniga abro laakiin waxaan ku sheegay sharaftaada anoo ku taaban inaan ku ciyaari doono dadka hortooda weliba intaad afkiina soo gelin inaa ka fiirista ayaa lagaa rabay maxaad iga qaadi kartaa adiga aniga waxaa igu ballan dadkan hortooda inaan sharafta kaaga qaado waryaa qof walba mobel haysto waxaan rabaa inaa qoftaan ka duubtaan waxaan ku samaynaya aniga amarkayga waa war naga tag maxaa dhacay kaartig anigu sheeg waxa dhacay video ishin video laakiin waxaa loo baahanyahay 2 saacadood inaan wada waxaa laga yaabaa hal waqti inaan wada hadduu waqtigan isku mid noqdana nasiibkeenana isku mid ayuu noqonaya gaashaale magaalada aanu joogno waxaa ka dhaca mar walba dil dhac kufsi boob waxaas dhacay dhan waxaa u sababa keeshow iyo walaalkiisa iyagoo og in sharci uu ka jiro misle waxay aaminsan yihin sharcigaba in uu jiibkooda ku jiro anigana anigo midaas ka damqanaya ayaa keeshow waxaan u xiray garays si uu ceyboobo waayo dhibaato walba beledkan ka dhaca asaga ayaa sabab ah iyo walaalkiisa waxaad adiga samaysay qalad iyo sax wixii ma sheegi karo balse waxaan kuu sheegaa libiskan annaga in noola siiyey in aan xabadaha tuugada ee soo gamayan shafka aan u dhigan oo aan dadka difaacno laakiin labadan nin dartooda sharafdha ayaa noo soo gaartay marka waxaan kaa codsanaya dadkan inaan layso wax walbaba anaa xalad ku dhiganayo gaashaale aniga midaas qalad ayaan u arkaa dadkaasoo kale haddii aan noqdo hub qaato magaaladan oo dhan wada qabuuro ayay wada noqonaysaa keliya waxaan kaa rabaa qaladkaan galay inqaabtiisa in aan maro diyaar ayaan u ahay waxaad igu aqoto sharcigina kama weynin waxaad igu amartana waan qaadanayaa aniga ma laga yaaba nin daacada adigoo kale inaan xiro sharcigana dembi ka geli maayo iska baxa halkan maxaad igu yeertay war saaxiibta sidaad iga dhigta aniga dhan soo bilaana noqda hadda soo bilaan rabaa miiraaxaysaane haa nakiin nama waalata maxaa kugu dhacay war aniga ma waalane keesho si uga absata darteed sababtaad aniga ii socdaasha ii sheeg midaas ayaa rabaa inaan ogaado war waan ku dilaya ma ku cafinaya toosii dillo war adiga waxba dheer u malay
aniga hooyaday aabahay intaa kadib ayaan iskuulka iskaga joogay adiga darta ayaan u joogay adigana waad i qiyaantay ii sheeg sababtaad ii qiyaamaysa aniga fidiya baalan oo kale isku wale aniga kadib ay dil war wajixmaa maarta fidiya baalan inay kugu soo kor istaagsa maxaa ka qaldan adiga war maxaa kaa qaldanaad ilaada hamiya aniga gurigeena markaan ka soo baxay qudha nin walba wuxuu hamiyaa gabadhan quruxda badan siduu ku heli lahaa adigana jacaylkayga ayaad qoorta ka goysay waa ii sheeg aniga markaan halkaa imaanay qorshe ayaan u imaaday laakiin waxaa xaqiiqa jacaylkaan aniga kuu qaad markaan ku arkay waa mid daba qof burcada misna gabar bii siinaysa markaan isku dhufto waxaan ogaaday inaad tahay gabadhii riyada qof qorshe u socday qofku warwal markuu arko wuu isku dhiibaa anigana adiga ayaan iskaga dhiibay hortaada naag ma jeclaan hay guriga hoo ku keena dekay inaan degmadaydii hees ka waran dhib ma laha marba gabadhan dunida ugu jeclaa haddii ay go'aansatay inay lamaano samaysato aniga run ahaantii wax dhibaan u arka mala aad ayaan ugu faraxsanahay wiilkan wuxuu la yaaban yahay aabbiyo halka taagan oo saan u hadlaya laakiin aniga waxaan hooyo reer magaal ah gabadhayda waxay jeceshaanana waan la jeclahay marka gabadhayda adiga oo keliya ayaa mas-uuliyaddeeda qaadi kara gabadhayda adigaa iska leh waryaada ninkaas waa in aad raadisaan magaaladoo dhanna cabsi inuu bannaanka uga soo baxa ayaan rabaa markuu soo baxane aniga ayaa ugaarsanaayo igama badbaadaayo taasi mid macquul noqonaysa maahan dadka mas-uulkuna nagama cabsanayaan cabsidoodii way ka guurtay qof laga gabanaya ma leh annagaaba qalqiil ku jirnaa markaana ku dhahay dadka dhan manala shaqaynooyin hal habeen ayuu atoor ku noqday asaga walaan hakome hoos soo deg wax adag deh walaal ganesh mar hore ayaan dhaweeyey kaana soo dhawow soo fariis see kaa noqotay gurigeena maa nagu soo dhaweynaysaa ninkan waxaan rabaa raashinka ugu qatarsan gurigeena in loo keeno sidaa maxaad igu fiirinaysaa waa aniga cadowgaaga walaalkaaga markaan u dhameeyey waxaan umalaynaya hawsha inay dhammaatay balse adiga markaan cagajgelintaada maqlay waxaan ogaaday hawsheeda inay qabiyo tahay sidaas ayaan gurigaaga u imaaday qaladka aad iga gelaysa adiga ilaa hadda ma ogid waad aragtay walaalkaaga falxumadaan u dilay isla sidaas ayaan ku dilaya haddaad afkaada xiri weyso hadhowna waxaa la wey doonaa qof adiga meydkaaga gubo amaba duuga carruur iyo cidoolna adiga ay kuga cayaaraan sidaad ugu cayaarta ay kuga cayaarayaan midaasaa iloobin aniga waxaan maqlay inaad ibaadi goobayso misna aad i raadinayso waxaad ilowsan tahay hal telefoon oo keliya haddii aad isoo dirreed aniga fadhigaa kuga imaan lahaa xitaa kafeeyaad cabayso free ayaan kaaga dhigi lahaa lacag kaa maqaadi lahayn aniga calaajabag ayay noqoleyd midda gabadhan ayaa kuu soo hartay waa indhahayga nuurkooda balana waxay ku qaaday nolosheeda inay ila qaybsato balanta inaan ka oofin halkan ay joogaysaa wiilkayga adiga mid tahay iloobin libaax inta uu ka fog yahay ayay fiirsada ku fiican tahay mar hadduu hoosta ka soo galo waxaad ogataa libaaxaas inuu ku cunaayo aniga ma dhihin taariikhda ayaa xusayso waa run laakiin waxaa ka sii daran ninkii libaax inta u tagay madaxa ka salaaxa kadibna qoorta ka gooyey hadalkaaga ayaa hadda wadda igu furantay aniga midaasna ogow ayaan ku dhahay inaad heshiis rabto maxaad igu sheegi weyse waa wiil balaayo iska dhigaayo waxaad ogaataa qofkii balaayo ku cayaara balaayada inay ku cayaarayso aniga ma dhihin taariikhda ayaa xusayso qofkii bisada iyo qofkii libaaxa taariikhda ayaa xusayso marka wakhtigeeda la gaaro walaal waddada muu galnaa muu dhammeynaa inta tacsida oo halka ka dhammaanayso gacan yaa loo qaadin soo niima dhihin anaga maa gacan qaadin dad ayaan dayana oo ku dhahay walaal ninkan kalsoonida guriga ku soo gala ayaan la baqayaa aniga maxaa yeelay ninkan waa nin khatar ah lugahaaga hoostooda ka socayaan ku dhiilahay isku badnaa walaal saaxib meeshaan mar walba ay farxad noocan oo kale ka dhacda joog waa inaad noo badishaa yakh middan waa caadaysana mid kale ka cusub noo keen middan waa dhacaniga mid macaan badan noo soo saar haddii adaa dhoostahay jabiga bedel wuxuu ka wadaa mataqaanaa wuxuu rabaa anaga jabigeena in uu bedelo laakiin annaga middaas kama yeelayno
annaga jabigeeda intaysan bedelin ka hor ayaan jabigiisa bedelaynaa asaga aniga ma dhihin waryahoy nimankii haddii ogoshiin aniga inaan hadlo waa hadlaa raalli aan ka indhaka jawigayga in la bedelo diyaar aan u ahay laakiin waa inaad marka hore jawigiina aad bedeshaan goobtan waa inaad keentaan naago qurux badan haddii aad rag keentaan sidii warqadii kale ayaan u jeexayaa aniga ragga xaggeygana waxba kama ahan tolkaa tahay ii soo duceeya idin iri dhammaantiin aabi gabdhahoy quraxmaashin चखने से टेस्ट तेरा और सुनिए चांदी से मैं तुझको सवारूं Makai, capa-capa menya kuyamba ukumbe mampa ka uji sombe. Capa-capa hi, ambire enya kuyamba hi, ukumbe mampa ka uji sombe. Jamuro jambala jambalula nasraminana na hisa turrijana. ayl badana idhageysa adiga waxaa la gaaray waqtigii wiilkeena anaga aan u aari lahayn horta ayaan ka soo gorinaa nakeen adinkana kaartag ninkan anaga akhbaarta beenta waxa uu noogu soo diray waxa uu rabay ninka wiilkeena diray inuu halkan ka fakiyo laakiin anaga midaas kama yeelayna maantana waxaa ogaataa in aan kaartig dilayna cid bini aadan oo naga celin karta ma yarata ماذا تقول محاي تري معنيه ورياه دتك أو بوتيس كعبسا يعني جميع لا أنكويري أنا عايزة وحن رلا وجه كوجه أوكي ما بلا وين قلنا براو ورياه بوتو واحدة ماشي دتك لك عبسا يا ماني مكا عبسا يسكن
waryaahoy aniga nin cabsada ma ihi gadaashayda waa la joogaa duud libaaxan ku dangiigaa waryaahoy aniga ma kula dagaalamayi adiga nin facaga kula dagaalama ani waa kaa yaryaa kaartig adeer 13 maalmood ayaa aniga iscelcelinayay ugaarta aan gaadgaadayna horteyda ayay taagan tahay waa maalintii ugu dambaysay tacsiida walaalkaa meesheed masaakiinta aad raashinka sileed ma waxaad halkan u timaaday inaad dagaalii fooda abaabusho 10 qofood oo adiga aad soo dirtay haddii ay feer igu dhuftaan aniga midas waxba uma arka laakiin hal feer aan ku dhufto 10kooda haddii ciidda ka hoos mari waayaan aniga ayaa kuu imaanaya gacantaada weliba sidaa doonta igu inqaab beelo waa nin ragga ninka sidaan u hadlay haddii aad dagaal u imaaday yaad u xeeran tahay gacmo furan ku soo dhawow aniga hortaada ayaan taaganaa soo soco hadal badan hanma buuxsha ayaan ku dhahay aniga ayaa ku tusaay waxa aad tahay meeshaan ayaana kugu jarjarayaa iska kay dhici ayaan ku dhahay cid kaloo kula dagaalamaysa malaha adiga markaad walaalkay gacan u qaadaysay soo ma ogeen marka aniga gacanteyda aad soo gasho in aadan iga badbaadeen war dadkoo dhan haddii ay isku yimaadaan cid iga kaa badbaadin karta ma jirta ii keena gabarta tan soo ma ahan gabadhii aad rabtay inaad guursato hortaada ayaan baasiin intaan ku bilbala dab qabadsiinayaa haddii aad iga badbaadin karto keena basiinka ku shuba ayaad idhaa basiinka walaal ku shuba si fiican u daawo adigii iska daaya aabbaha xataa ma badbaadin kara ayaan ku soo istaag aniga xanaal walaal wax maa ku gaaray dhammaantood ii soo aruuriya soo socda war yaa soo socda haye wiil yahow markaan kaa diidayay dadkan arrimahooda inaad faraha la gasho sidan ayaan kuu diidayay maxaa yeelay waqti fiican ayaad akhbaartooda soo gaarsiisa mooye saacaddan way kuma bixin lahaayeen hadda gacanteeda ayay soo galeen taariikhdaana xusi doonta mar dhow ayaga way u dhammaatee gaashaanle bistoola soo qabanaysa annagaan ugu kor jaranaysaa waxaad ogaata adigaha taariikhda in ay wax kaa qorayso xaafadda awjid annaga ayaa u tirinay yaa way cidda gacan noo qaadan karta car waa kas annaga qof soo baxo gobolkan dadka degan niyadda ayagoo ka jaban ninkan ayaa u imaada kalgacayl buuxa ayuu siiyey isagana wuxuu mudanya kalgacaylkiisa in wanaag loogu bedelo akhbaar farxad leh ayaan idiin hayaa
maxaa yeelay ninkii magaalada qasi jiray maanta gacanteena ayuu ku jiraa sidaad doontaanna waad ka yeelan kartaan fasaxaad u tihiin qofkii dhibaato badan geystaa ogaada mar inay bulshada ku kacayaan oo qoortiisa ay qac ka yarsiinayaan hadarta maxaa samaynaynaa waan isguursanaynaa no waxgarad ayaa tahay guurka wax ka diyaarino okay marka cunugaan dhalano